halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne waa warkeennii labaad isaguna duqa lafaha gudahooda ahayna Biden oo indhawaalaba gabi dhaclaynaya ayaa sheegay inay baylah tahay dhira dhabatada iyo dhunkaasha wax ay nabtay ay huursato xukuumadda Pakistan wuxuu sheegay reeraha Islamabad ay u kala fadhiyaan 10 jeero taasina ay tahay mid halis weyn ku ah baaruudda laga sameeyo dheecaanka dharkaynka ee nuclear la yidhi wuxuu sheegay in dalkaas ay isku hor fadhiyaan duulka mucaaradka ah oo ganafka taagaya ciidanka oo kilkiladooda urtay iyo xukuumadda oo wax isbudaysa wuxuu sheegay in hubkii bilaayada ahaa uu haawanayo isla markaana ay xabka ka fududahay inay habeen madow la guureeyaan qolyaha ka dagaalama oo wadaagta Pakistan ee Afghanistan oo ay ku jiraan kooxda Al-Qaacida warka guxushaagan ka soo yeedhay ayaa noqday mid si weyn uga cadhaysiiyay duulka Pakistan iyadoo xukuumadda dalkaasina ku sifaysay daandaansi badheedh ah oo aan geed la isugu soo loohin waxay sheegeen duqa in Biden uu noqday oday dhalafalooqoobay oo jooga da'dii laga fadhiisin lahaa quraaradaha uu ka soo dhurmayo waxay sheegeen in aanu xiskiisu wataam ahayn maadaama oo la sheego inuu mar sii horreysay uu haylaha tuuray waxay sheegeen inaanay kaga hadhi doonin gardarrada cad ee uu la soo doontay docda kalena dowladda Pakistan ayaa u yeeratay danjiraheedii u gowdiiday Washington kaas oo ay u wacday si wax looga weydiiyo hadallada deelqaafka ah ee ka soo yeedhay duqan aan seedi u dhalaanayn ayna Biden wararka iyaguna naga soo gaadhaya sidan iyo shabeellada dhexe ayaa ku warramaya inay kooxda Al-Shabaab dacal banaysay kana hadaaftay deegaanka magaciisa la yidhi Ceelbaraf oo aan tahan ka dheerayn degmada Aadan Yabaal xogaha ayaa sheegaya inay halkaasi soo galeen una daba mareen Al-Shabaab ciidan ka socda dowladda Xamar oo camaariyelaya kuwaas oo u toogahaya inay majaasunbula ka ridaan wararka ayaa sheegaya in labada ciidan ay isbaar eeganayaan isla jeerkaasna ay kala cawsanayaan aagagaan wax roon kala durugsanayn gobolka shabeellada dhexe oo ka mid ah meelaha kulaala ceelka Xamar ayaa ah mid labada dhanba ay goobayaan sida iyagu gacanta sare ugu yeelan lahaayeen una qabsan lahaayeen docda kale beesha Afgaan oo lagu sheego cuurka hawiye ayaa la sheegaya inay ilaa iyo haatan ka gabargaalayso dagaal ay la gasho kooxda Al-Shabaab tiyo gulufkii la beeleeyay uu ku sii siqayo soona u sansaaneeg mid aanay waxba ka soo naasacadayn isaguna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Addis Ababa kula hadlay dhalada warka la oroday ay dambaabaan qolyaha Carbeed magaceedana la yidhi Al-Jazeera ayaa dalalka Beuskaga u dhiibay ee maraweynta Carbeed ka duraantay inay wuxuun kula soo itaalaan dadka Soomaaliyeed ay isu barkadeen abaaraha oo dalulka iyo 10 aafaad wuxuu sheegay inay sabooleen dadkii ay u foofi jireen tirooyinka adhiga ah iyo kuwii xaraysan jiray raysimada geela wuxuu sheegay in roobkii dayrtu uu noqday tumay aan soo saarin tigaadii lagu doojin lahaa xoolaha wuxuu sheegay in dherigu saabka ka galay dadkii Soomaaliyeed ee caanaha daadin jiray wuxuu sheegay inay kama kacdo tahay sidii loo heli lahaa waxoogay ka walaah oo lagu daba qabto dadkaas reesabaaday wuxuu sheegay in meesiyadii la dhaqan jiray ay tarab u leedeen isla jeerkaas la waayay wax lagu jalo abaydinka caananuuga wuxuu sheegay in dowladdu dadaal weelba u gashay sidii loo heli lahaa wax sirsir ah ama baqti afuuf looga dhigo dadka tabaalaysan balse ay xaab ka soo qaadi waayeen afartabeenajo ugu dambeyntii Xamse Cabdi Bare ayaa ka bariyay reeraha Carbeed inaanay ku eegan dacdarada haysata maanta Soomaalida maadaama duulka Soomaali la yidhi ay abaal ku leedahay oo Carbeed gaar ahaanna waagii ay qalan jireen maskaxalayda ee aanay helin waxoogayga baasiinka ee ay hadda ku tuureen gorofti caydheed ee ay leelasan jireen markii dunidu laba ahayd weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV iyaguna dalalka ku midoobay gaashaanbuurta NATO ayaa dhoolatuskii sanadlaha ahaa ee sunta waabayda iyo dhira dhabatada nuclearka ka bilaabay waqooyi galbeed qaaradda Yurub iyadoo ay taagan tahay colaadaha iyo kala tahantoogga wadamada qaybta ka ah ururka NATO kaasoo ka dhashay dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia arrintaas waxaa dabka ku sii shiday baa la yidhi madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo dhowaan ku toodhooday ama ku hanjabay inuu adeegsan doono wax kasta oo lagama maarmaan u ah madax bannaanida iyo deganaanshaha dhulka dowladda Ruushka waxaa la sheegayaa in 14 dal oo ka mid ah 30 dal ee xubnaha ka ah ururka NATO lagu wado inay ka qayb ahaadaan dhoolatuska iyo goolaaftanka sunta waabayda iyo dhira dhabatada nuclearka ee lagu samaynayo waqooyi galbeed qaaradda Yurub waxaa la biniixinayaa in dalalkii ugu horreeyay ee ka qayb qaadanaya dhoolatuskan hubka wax gumaada ah ee nuclearka ay haddaba gaadheen goobahaasi loo asteeyay in goolaaftankan iyo cagajugleyntan lagu soo bandhigo dhanka kale waxaa weli taagan xiisadihii cakirna ee u dhexeeyay dalalka Ukraine iyo Ruushka kuwaasoo hadda dagaalada u dhexeeya marayaan halkii ugu darnayd haddaba dhoolatuskan waabayda nuclearka loo yaqaano oo ay gugiiba hal mar amaamudaan wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ayaa gugan ku soo beegmay xilli ay xaalada qaraadhi hadheeyeen careedeg
ugu dambayn lama oga in bandhigan lagu soo bandhigayo sunta waxalgaada uu ka duwanaan doono kuwii guyaashiina soo weydaartay ay soo malaqboodhin jireen dalalkan iskuba haystay ururka NATO iyo inuu u dhaco si la mid ah sidii guyaashii hore uun. si kastaba ha ahaatee waddamada qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO ee dholatuska waabayda samaynaya iyo hanjabaadda Vladimir Putin ee ka dhanka ah inuu adeegsan doono sunta waabayda iyo dhilo dhabatada ayaa isku soo beegmay xilligan, waxaana carreedagoo idil ku abuuray xaalado baqdin iyo cabsi ku dheehan tahay oo ay kaga baqayaan wadnahan afarta kaga hayaan in labadaasi awoodood isku mutaan islamarkaana uu sidaas ku qarxo dagaalweyne saddexaad oo carreedag ka hulaaqa. iyaguna reerihii ragmaday ee Itoobiya oo midooyinkii u dambeysay laga docogaysanayay inay dabka dhigaan ayaa kol labaad ku celiyey in wax loo hadoodilayo oo la doonayo sidii ay qooley oo kale qoorqabasho biyo uga cabbi lahaayeen. ninka afnaqa u ah gaarayacuunta Tigreeg Getachew Reda oo maanta ka dhurmayay dhalada ay kooxdaasi dabaabto ayaa sheegay inaanay mar dambe haba yaraatee wax daawo ah la qaadan doonin qotiga Abiy Ahmed oo ay ku tilmaameen midaan rabbi iyo ragtoonna aqoon. Getachew Reda ayaa sheegay in waxa laga doonaya aanay ahayn nabad lala qaato balse ay tahay hoosiis iyo hadoodil iyaga lala maagan yahay si loogu shirayso. wuxuu sheegay in duulka kala badbaadinta labada dhinac ku foogan ay yihiin qaar aan aqoon Abiy Ahmed oo isagu ku tilmaaman xargagoys. wuxuu sheegay inay iska dhugan doonaan wax walba oo loola yimaado iyo dhagarta loo maleegayo si loogu qabqabto saraakiishooda ugu sasraysa. wuxuu sheegay in marar badan oo hore la dagay islamarkaana baaruudda laga dhigay haddana ay la kulmeen dambaabidho dagaal oo carcarteeda wadata taasoo kaga timi xukuumadda Addis Ababa. ninkan ayaa si halaasi ah ugu luuqaynayay maansadii abwaangaariye ee ahayd midho daray haddaan beri duuduub ku liqi jiray mugga waxaan ka dayayaa dirxi inuu ku hoos jiro. si kastaba ha ahaatee tan ayaa noqonaysa fallaar labaad oo lala eegtay waanwaantii ay u tafaxayteen dar uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo oo isagu ka mid ahaa dadkii loo saanyaday inay furdaamiyaan moorada cakiran ee 3 sano ka durfaan dhabaysa dalka Itoobiya. haddii aynu u jalbaasino sidan iyo bariga dhexe isaguna ninka ay ilmaadeerka yihiin wiilkan 12 loo kala goynay Maxamed Ibn Salmaan magaciisana la yidhi Amiir Sacuud al-Shululuun ayaa isla soo taagay inay gacan wax kaga wanaajin doonaan itaalkooda xukuumadda Ina Bayden oo ku tilmaamay mid alamtarana soo dhaaftay. wuxuu sheegay inaanay ka gabargaali doonin nabar daran oo ay kala ayaansadaan dalka Maraykanka maadaama oo buu yidhi ay dharaar noolba ula joogaan daandaansi iyo dagaal shaashiyeed aan kala gool ahayn. wuxuu sheegay inay ku dhegtoomi doonaan isutoga Washington sidoo kalena ay Maraykankana dab suri doonaan. wuxuu sheegay inaanay xukuumadda Riyaad ahayn mid ka fool dadbi doonta qolo kasta oo soo gacan togaalaysa arrimaheeda gudaha iyo siyaasadda reer boqor. wuxuu sheegay in la joogo kalkii la iska dhicin lahaa reerahan soo qaatay ee qilana wiilana laga taagan yahay. Amiir Sacuud ayaa sidoo kale ku goodiyay inay dhababi doonaan saliidda la fadhiqamiiso ee ay u dawin jireen dadyowga carreeday. wuxuu intaa ku daray in ninkii ku ladnaa haba ku leeleele ay buuxsinka u jiidi doonaan dufankan loo soo eeganayo. hadalkan ayaa soo baxaya xilli ay ciyoon idifka isgeliyeen duqa lafaha gudahooda ee Ina Bayden iyo wiilka afaadka qaba ee Ina Salmaan. Coomirkan iyo wiilkan oo awoowaha u noqon karo ayaa sida la sheegay isku qoonsaday taageerada Xasan oo ay xukuumadda Riyaad u disisay sidan iyo Daanbari gaar ahaan dalka Ruushka oo dagaal ka wada dalka Ukraine. lama oga halka ay iskula dambayn doonaan qolyahan haatan iskula baxsaday oo jeer ahaan jiray dameer iyo labadiisa daan. iyana 1984 oo hilaadii laga joogo 38 kuna beegnayd dharaartii maanta ahayd markii ay goorsheegtu ahayd 2:15 daqiiqo ee gadiidnimo waxaa isku haleelay burcaduuray ciidankii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM iyo ciidamadii dawladda Jaale Maxamed Siyaad Barre kuwaas oo ka koobnaa 2 urur oo gaashaman. waxaa goobta ka dhacay baa la yidhi dagaal la isku hoobtay oo soconayay 6 goorsheegood. waxaa goobta lagu dilay 30 ka tirsanaa ciidamadii SNM ee dhaqdhaqaaqa gobolada waqooyi halka 2 ka mid ah nolol lagu qabtay. waxaa xusuus mahadhaha mudnayd in goobta lagu dilay abaanduulihii ciidamadii SNM ninka la odhan jiray Maxamed Xaashi Diiriye Lixle. dhinaca kale waxaa ciidamadii Siyaad Barre laga gubay 12 beebe waxaana dhegta dhiigga loo daray tiro u dhaxaysa 90 nin ilaa 100 nin. waxaa dagaalkaasi ku keenay ciidamadii loo yaqaanay faqasta dhabarjab weyn iyo kalsooni daro soo fool saarta. waxaa la sheegay inuu dagaalkaasi caan ku ahaa taasoo aan hore iyo dib midna loo adeegsan inaan haba yaraatee wax cabsi ah oo dharaartaasi ka dambeysay laga qabin geedka la yidhaahdo beebeega oo maalintaasi laga gubay ciidamadii Maxamed Siyaad Barre 12 ka mid ah. intii ka dambeysay dharaartaasi waxay ciidamada ururka SNM si ballaarsi ah isugu laba rogayeen ciidamadii gabalaaxay qaydka dheeraan ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya. maanta ayaa lagu qabtay haddaba xaflad lagu xusaayay 17 bisha Oktoobar tiyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland uu sheegay inay dagaalyahanadii SNM u yeeli doonaan sarimo fur iyo dhagjeex u noqoto baadiso.
maxamed kaahin axmed ayaa ka dhawaajiyay inaan la isugu soo dhuuman doonin halkan baanu soo galnay balse dadka la kala sooci doono subaxan dheerayn wuxuu sheegay in qolyaha awrta cuntay ay isla soo taagaan waxaanu ka qayb galnay dagaalkii asalem iyo kii u dhexeeyey xukuumaddii kacaanka hadalladii hadda la soo jeediyey waxaa ka mid ahaa halkan in loo baahan yahay ninka asalem markuu meel tago inuu aqoonsi leeyahay arrinkaa dembigeeda innaka iskale inteennii asalem baa isule iskale xafiiska sooyaal xafiiskeenna sooyaal baa leh inta iyada waaweyne xilalka qabataa la leh hadda laakiin maanta marka halkan maanta laga bilaabo waxaan loo samaynayaa SNM kaarkii aqoonsiga sooyaal baa madax ka noqonaysa sooyaal baa soo diyaarinaysa si aan la isugu soo gabanin oo kuwii awrtu cunayna odhanin SNM baanu nahay intaa warranay waxaanu ku darnay moogin xoojin ogaal ka sheegnay maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland